wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi oo u jooga magaalada Boorama hawlo shaqo la xiriira oo kurgalka adeegyada xarumaha caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa waxa uu maanta bariga magaalada Boorama ka dhagax dhigay dhismaha xarun loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka taasoo ay hirgelinayso dawladda hoose ee degmada Boorama. Dhagax dhigani ayaa sidoo kale waxa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ku wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal duqa degmada Boorama isuduwa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool xaafadaasi. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah qoyskii bixiyay dhulkani iyagoona sheegay cabirka dhulkani ay ugu tala galeen dhismahani. Cadeynayna annagoo ilma Xaaji Nuur ah in aan bixinay dhul 20 iyo 30 waxaan halkan ugu deeqnay MCH in looga dhiso beesha. Halkan waxaan ka bixinay MCH oo beertii Xaaji Nuur annagoo ilma Xaaji Nuur ayaan bixinay ku deeqnay cabirkiisu ah 20 iyo 30. waxaana maanta sharaf weyn ah in mikrofoonka lagu sharfo anoo gudoonsiinaya dawladda Soomaaliland gaar ahaan degmada Boorama dhulkii Xaaji Nuur ka haray oo inamadiisa ugu deeqeen in bulshada loogu adeego. waana farxad weyn waana maalin wanaagsan oo aad iyo aad qiimo u leh taariikhdana galaysa. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse waxaana uu yiri dhulka balciisa iyo dharkiisuba uu yahay inta 30 waxana weeyaan waa maalintii run ahaan deegaankan aan joognana ugu horeysay goobtii caafimaadka laga yeegleelo annaga ka wasaarad ahaana farxad gooniye noo tahay aad iyo aad baan runtii aan anagu u soo dhaweynayna goob kasta oo baahi u qabta in aan intii taalka ka daboolo. duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi ayaa sheegay in ay dawlad hoose ahaan hirgelin doonaan dhismaha xaruntani. kullay GBLG-gu mashaariicda waday sanadkan xaqaybta caafimaadka waxaan ku soo ururinay inaan ka dhigno mid cusub dayactirkii iyo waxyaabihii kor hadii wixii hore aan qabnay waxaan ugu talagalnay doorkan inaan mid muuqda inaanu ka dhisno kiina waxa noqotay halkan hadii Ilaahay dhaahdo. wasiirka maanta waxaan ugu yeedhnay isagoo hawl qaran ku jiray oo kullay kormeer hawleed ugu gobolka ku marayay kana farxad bay noo tahay inuu maanta noo dhagax dhigo hadii Ilaahay anagoo bariba bilaabi doona hadii Ilaahay dhaahdo. ay sanadkan horta waxa degmada ugu jiray in hal MCH la taago alxamdulillah wayna ka maanta joogna wasiirkii maayirkii gudoomiye ku-xigeenkii isku duwi ay dhagax dhigi doonaan Xaaji Nuurna Allah ka jisaysiyan leenahay ay dhulka ay bixiyeen. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi ayaa sidoo kale u mahadnaqay qoyskii ku deeqay dhulkani waxaana uu yiri farxad bay noo tahay in ka soo qayb galno dhagax dhiga MCH cusub oo laga dhisi doono xaafadan oo runtii ay bixiyeen inamadii u dhalay Xaaji Nuur taad bixiseen bedelkayga Allah idin siiyo waan idin ducaynaynaa. annaka farxad gaar ah ay noo tahay markasta oo meel horumar ka jiro loogu yeero farxad weyn bay noo tahay runtii ama talaabo hore loo dhaqaaqay ay noo tahay gobol ahaan. ugu dambeyn waxaa halkaasi hadalka soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi waxaana uu sheegay run ahaantii waxa sharaf noo inaynu halkan maanta dhagax dhigno xarun caafimaad oo ah hooyada iyo dhallaanka oo dhismihiisa ay iska kaashadeen mashruucii GBLG ku jiro oo UNICEF iyo dawladda hoose dhulkana uu ku deeqeen tafiirtii ka hadhay Xaaji Nuur. waxaan leenahay marka hore aad iyo aad baad maatantiin reer ahaan oo ku deeqdeen waalidkiina waxa uu tahay sadaqadu soconaysa idinka inta nooshiin magac bay adduunka idinta tan waxaan aaminsanahay inaynu xaafad cusub oo baahi badan u qabtay adeeg caafimaad oo sida la sheegay halka ugu dhow xanaano ay tahay Qoorgaab iyo Shaqar Jawhar inaan maanta dhagax dhignay insha Allah taala muddo dhow markuu dhamaado dhismuhuna wasaaraddu waxay diyaar u tahay qalabkii iyo shaqaalihii iyo adeeg caafimaadka inay ka bixiso. waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.